runtii caawa xigmad dadka Soomaaliyeed loo sheegi lahaa iyo fariin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo diri lahaaba meeshan caawa kuma baaqan hadday nabadoon u dhihi lahaa iyo haddii dhalinyaro ay dhihi lahaayeen iyo haddii dhalinyarada suuga gabdha iyo wiilal ay dhihi lahaayeen haddii siyaasi uu dhihi lahaa meeshan caawa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo dhagihiisa kuwa laab u daloola Allah ka dhigo waxaan rabaa markaa hal wax oo aan aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba inay maqlaan aan jeclaan lahaayeen rabaa inaan sheego waa maxay waxaas cayayaanka baraha bulshada iyo kuwa aan macnaha lahayn xigmadda yar maxaan ku yiraahdaa fadlan ku shubada ah qaab darrada badan wata waxa ay dadka Soomaaliyeed u sheegaan waa been dadka caawa meeshan ka hadla dadka Soomaaliyeed dadka ugu qiimo badnaa ugu xurmo badnaa ay ka mid yihiin waxa ay ka hadlaan ayaa xaqiiqo oo dhab ah oo run ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo dadkan murashaxiinta la leeyahay ee caawa meeshan fadhiya ee sharafta badan waxay isku haystaan dad badan waxa loo sheegay kursiga ku haystaan madaxweynaha waa kursiga waa madaxweynenimada la isku haystaa waa been wax jira ma aha waa waxa aan leeyahay CBB ka shaqeysaa fulisan la leeyahay waaye madaxweynaha iyo annaga kursiga dooro madaxweynenimada annaga wada rabna dhamaanteen mid kasto annaga naga mid aha rabo annaga isku dili lahayn annaga iska raaracno isdaabaynayna nala arki lahay isma dilo wayno waa isla soconnaa waa wada fadhinaa isku codaanaa isku talaanaa waa isjecelnahay madaxweynaha waxaan iyo annaga isku haysanahay waa Soomaaliya dalka waaye dowladnimada waaye yaanay naga burburin dowladnimadu dalku yaanan naga dhibaatoon dadkeenu dib uma noqdo yaanan dib loo celin waaye waxaan leenahay madaxweynaha oo dhowaa marka dadku inay fahmaan oo inta laga dhacay iyo 90 loo noqay 90kii 30 sano ka soo wareegtay dadka meeshan fadhiyo gabdho iyo wiilal badan leh 90kii ma nooleen mana joogin mana jirin qaarkood hooyadooda abood xataa isma qabin looma noqon karo loomana noqonayo shalay taariikh wax ka barashay leedahay wada loo noqdo maaha waxbaan ka baranay waa soo joognay annaga intaan ilaahay cimriga siiyay wixii fiicnaayna aan sii wadno 30 sano la soo dhaafay wixii dib lahayna aan ka joogno waaye waxa la isku haysta dadka caawa meeshan ka hadlana si fiican ay u wada sheegeen kulli dadka Soomaaliyeed arinta inay fahmaan u baahan waa taas sida saaxiibadeedii hore meeshan ka hadlo dhan ay u sheegeen wax kasta oo la isku dili karay oo colaadi ka dhala kartay oo mushkila ka dhala kartay dadkan xildhibaan murashaxiinta meesha fadhiyo waa lagu sameeyay mid gurgiisa la dilo lagu galo dad lagu laayo asiga la dhaawaco mid maxaan ku yiraahdaa diyaarad ma raaci kartid la yiraahdo mid diyaarad raacay inta dhow yahay loo diiday in shabaab meel degan ku dhaxdhacda laga taliyay mid maalin dowladda gurgiisa irdiisa inta askar la soo dhigay asoo la og yahay inuu iskuur ciidan amni oo ilaaliyo gurgiisa asaga iyo inay joogaan la wiilal kale la soo hordhigay oo dul jooga lama dhaqaaqayo yaan la aadin irida yaan la furisa ilaahay dadka qaarkiis maalinta ay ku qada seegeen oo suuqa ay ka soo adeega waayeen dulqaadka intaas ka badan ee Soomaaliyeed oo qof sameyn karo waa maxay qabka intaas la ego qof oo ka dulqaada karo in saas loo qabjibiyahay waa maxay dadkaan dir isma dheeree dowladnimada la ilaaliyoha waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed inay saas u fahmaan wax kasta oo xumaan oo magaaladan ka dhaca oo lagu tilmaami karo colaad inay yihiin waxay ahaayeen jawaab laga sameeyay ficil ay dawladdu sameysay dadku madaxweynuhu soo diray ay sameeyeen ay ahaayeen dhammaan galabta u dambeysay waxa degmada Kaaraan ka dhacay waxay ahaayeen ficilka ka horeeyay guryahoodii dada loogu galay
la jibi albaabadooda ayagoo hurdaa guryahooda loo dhacay la soo xirxiray alaabta guryaha tila laga soo qaatay jawaabtii ka timiday waaye kuwa ayagoo waa nabadaan rabnaa dowladnimadaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa dhahayo jidka taagan awgeed loo xirxiray qaar kalena guryahoodii uga maqan yihiin ilaa caawa aan halkaan ku hadlaynaa qaaraa maadasho uga maqan guryahoodii maxay ku mutaysteen maxay bi'iyeen dimuqraadiyad iyo dowladnimo iyo dulmi diidnimo waayo dembiga ay leeyihiin taasi hadday dembi tahay waa dembi annaga dhan aan leenahay laana intaas annaga dhan waa diidanahay mar kale waxaan rabaa dadka soomaaliyeed wixii qurxunaay saaxiibada ayaa yidhi inaan dib ugu noqdo ma rabno burburna ma jiro colaadina ma jirto isdil ma jiro dalkan wax ka hallaabayo hadal wax ugama hallaabaan dalka laakiin waxay wax uga hallaabaan dalka waxay qoraga ninka wata iyo ninka amray waaye waxa wax ka hadleeyo nin hadlayo oo tabeelo wato ama mikrofon wato ama muxuu meel taagan dal burburna ma keena dadna ma dilo waxaan rabaa inaan usoo noqdo dhalinyarada soomaaliyeed ee walaalihiin ah ee ciidamada qalabka sida ka mid ah ciidan waxaa ku tahay ood xuquuqda aad ku leedahay waa qaanuunka iyo sharciga reer hebel inaad tahay kuma lihid degaan hebel inaad ka soo jeedid kuma lihid waxa aad wax ku leedahay ood sharafta iyo haybadda ku hugsan tahay oo xidigta calanka soomaaliyeed dhexdiisa ay inta kuugu dhegan tahay waa qaanuunka iyo dastuurka iyo nidaamka waaye laguma adeegsan karo wax qaanuunka ka soo horjeedo haddaad wax qaanuunku diidan yahay haddaad samayso waa dembi waa lay amray qaanuun daraa laygu amray waxa waaye waa dembi aan cudurdaar loo helin recordna waa yaallaayo dunida qarniga 21aad casriga teknolojiyadda casriga waxaasoo dhan waa record garaysan yihiin ha kadsoomin ha qaldamin yaan lagu marin habaabinin ha dilin walaalka ha karaamo dilin walaalka inaad qoray haysato qoraga sharciyaad ku haysataa qoryo badanaa beledka yaalloon sharci lagu haysanin ha sababin kuwaas aan sharciga ahayn inay guryahooda ka soo baxaan ha sababin wiilka soomaaliyeed iyo sarkaalka soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ka tirsan ayaan fariintaas u diraya kow wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed ee ayagana sidoo kale si qaldan loo isticmaalayo guddiyaatihiin doorashaa qabanaysiin la yidhi beenaa la idiin sheegay si khalada waaye waxa loo socdaahay tuulkii wax lagu khaldayay ee dalka iyo dadka lagu duminaya ha noqonin maanta waxaad sheegteen ay soo saareen wax kama jiraan waaye waa khayru sharci waa khayru dastuuri waa wax ka soo horjeeda rabitaanka ummadda soomaaliyeed wiilashaas iyo gabdhahaas wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah oo shalay kuwii annagu aan madaxda u ahayno saraakiisha muxuu garaadaa u xirnay oo aan darajada siinay ay ku jiraan iyo kuwii aan qaarkood macallimiinta u ahayno jaamacadaha iyo iskuulaadka u dhigayna ay ku jiraano ha noqonina mididii sida khaldan loo isticmaalay doorasho aad qaban kartaan ma leh sida aad u socotaan iyo sida ay nimankaasi rabaan inay idin isticmaalaan doorasho ku dhici mayso hadday ku dhacdana waa disaster qaybaa ka tahay ogaaw biri aniga maya waa lay magacaabay waa lay adeejiyey aniga muxuu ahaa kaama bixiso dheer cod dheeraan kuugu sheegaynaa waa khalad biri kaama bixiso waa lay magacaabay waa lay soo yeelay intaa layga keenay sharci darro waaye rabitaan la-aan waaye nin rabitaankiisaa ku shaqeeyo haysaa dowladnimo rabitaankeed kuma shaqeeyo haysid ka joog iska dhaafo waxaas irsaaqada iyo darajada iyo waxa allah baxsho meesha aad soo gaarteen qaabdarro kumeydaan soo gaarin ha u noqonina waalidiinta iyo walaalaha ay la dhasheenna ha loo caqli celiyaan leenahay ilmaheenna waaye wanaagaan la jecelnahay shanaan la jeclan maantana la jecelnahay marna ma dhacayso waxa maanta jadwalka maanta aad samayseen ee aad idaacadaha u sheegteen ee media aad geliseenna wixii ka dhashay mas-uuliyaddeeda adinka qaybaad ku leedihiin ogaada wax fiican kama dhalanayaan
wax dhib badanaa ka dhalanayo mas-uuliyadda qaybaad ku leedihiin haddii qof tuuro inta qaato uu ku dhufto qofkaas qofka tuurada ku dhufto waa dambiile soo maha maxkamadaa la geeyaa soo maha tuuraydii qofka lagu dhuftayna maxkamadda waa la geeyaa iyadana soo maha ya ha noqonin tuuraydii beri maxkamadda la geey lahay ha noqonin tuuraydii beri maxkamadda la geey lahay waatana muxuu ahay waa kuwaana wari adinka yaa idin yeeri yaa idin magacaabay maxaa u samayseen maxkamadda horteeda iyadoo telefishinada caalamka masaa'idada beriha sabab ha u noqonina qaanuunka u hoggaansama dastuurkii ninkii odaga ahay abwaanka ahay timajirc ma mase bislo ahay bisle ee halkan xigmadda weyn ku jiray dastuurka waa xariggii ninka ceelka ku dhacay uu sheegayay waa ku kalsoonaada aamina dadkiina hore ugu soo heshiiyey mushkiladan ayadoo aanay jirinaa dastuurka la sameeyey si waxa imaan doona suurtagalka ay xal ugu noqdo qoorta ha suranin ceelka waa lagaa soo saara laakiin adoo meydayaan lagaa soo saara aad iyo aadaan markaan ugu mahad celinaa waxaan leenahay dad badan oo soomaaliyeed oo annagu aan ka mid nahay walwal badanaan qabnaa waxaan walwalka ka qabnana dadka soomaaliyeed inay xun yihiin ama qaab daran yihiin ama colaad u taagan yihiin maaha waxaan walwalka ka qabna waxaa madaxda maanta joogta siday u dhaqmayso oo qaanuunka ugu dhaqmayso oo dowladnimada ugu dhaqmaysa waaye madaxweynaha hadda ka horna waa u sheegay waa fariinta haddana mar kalena waa u farayaaye bila soomaaliya haddii laga soo baxo nolol qurux badanaa jirto nolol qurux badan oo sharaf badan oo dadkaagu ay ixtiraam ku hayaan oo maxaanku idhahdaa adigu aad ku noolaa karto oo taariikh fiican leh yaa jirta markaas si fiican uga soo baxdo haddii lagaa soo qoor qabto laakiin ma lihid intaas fursadaa kuu furan dadkan dad hadda muxuu ahay sida aad ku haminaysaan iyo adiga iyo wiilashaada aad ku fikiraysaan ama aha dad fiican waaye dembiga iyo qaabdarrada laga gelayana ha ka gelina kuwa gada la geeya ha la soo celiyo dadka gada jooga ha la heshiiso dadka gada jooga aniga madaxweynaha markaan ahay diyaarada inta qaataan u tegey waa tegey garbahareyda maanta laysku dhex fadhiyaan soo dhex istaagay dadkan soo dhageystay maxaa dhiboo qabtiin weliba waqti ay duruufo adag ay ku jireen oo abaare ay jira colaad ma jirin isma dileen qoryo isuma haysanin duruufo gaarayo waxaa abaaraa jiray sidii intay la eg tahay iyo xadigooda inaan anig dad inay ii sheegaan ma aanan aqbalin diyaarada inta qaataan ka degay aan soo dhageystay kadibna wixii loo qaban karay oo awooddu isaamixiisaan qabanay dadka gado degan ee sharafta badan inay inta kala qaybsamaan qaar cararaan xuduudda ka gudbaan qaar kale ay magaalooyinkooda inta ka cararaan duurka aadaan kuwa reer gada aan ahayn la qaado ee meesha loo geeyo ee ayaguna ay meesha muxuu ahay dhibaato dadna u geystaan ayaguna ay dhibaato ku dhacdo kuwii reer gada ahay in badanoo ka mid a inta lasoo qaado in xamar la keeno la yidhaha adeerkiina daaficaysiin waxaasi xigmad waa dhaqan nin xikmadi ka dhammaatay dhaqankiisa waa madaxweynaha xikmaddaa ka dhammaatay madaxweyne walaalaha aan nahay annagaa xikmad kuule aan gacanqabadkaadaan leenahay joog waddada aad ku socotaa meel fiican kuma dhammaato hortaahaay dad badani qar fataq u weeraysay ugu sii hadaafayeen ayagoo u arkaa laaca aragtaya laagga moogtahay joogtaa laaca ha fiirina quruxda badan ee 20 sano 30 sano dalkaa inaad ka talisa ah xagga kaaga muuqdo kaamuna qarar badanaa ka sokeeyo oo laga dhacayo ha ka dhicin keligaa haddaad ka dhacaysid barbadhiyo joog budiidaa orod ka dhacan ba ku dhahayna laakiin annaga dhammaan nala dhici rabtaa ee na dhig dowladnimo iyo dimuqraadiyada dadka Soomaalidu dhaqan ahaanay u leedahay dimuqraadiyada taariikhda laga hadlay inaan muxuu ahay dal dimuqraadiya dad dimuqraadiya dhaqankeena iyo spiritka nolosheena ka mid tahay dimuqraadiyada dad qable oo inay isduleystaan iyo in la duleystay intaba aan ogolayn waay ayagoo dowladda inaa dowladda inta kusoo duulaanay maageen say rabaan inay ka yeelaan laga yaabo sida ay rabeen qaarkeed si u fiican dalkan iyo dadkan xataa inay ahayd
laakiin talo lama talagelin talo kuma laguma siin war waxaanaan afiicana say idin tawaanu meedan la fulina lama dhihine ayadoo la duulaayo oo maxaan ku raadin taangiyo iyo diyaarado iyo adduunyo la wata la soo kordhay war maxay ahaan waxaan intee noogi maadka waa wixii ogaantaa ka dhacay muxuu ahaay beledkan iyo dalkan dadka marar badan waxay isweydiiyaan war adduunyadii faraha badneed oo weyneed ee 36 dawlad lahayd ee dalal kale oo daris oo waaweyn lahayd yaa dadkan yacsigeena wiilashan yaryarka ee shabaabka maxay yacsiga dhihi waayeen xaqiiqada waxay u baahan tahay in dhabta la fiiriyo moogtahay maymuun biyo islaanta la dhihi jiray ee shabeellada dhexe ku noolayd abwaanada ahayd xikmadeedii waaye masaari geed ma goysee geed kalaa ku gooyo gaal hadduu islaam wadana ma soo galeynay dhahday waagii talyaaniga uu dalka soo degaayo waay shabaab qaarkeennaa ku daadan ma ogiye saasna ma yeeli karaan laakiin waa masaartii daabkii geedkii qaarkiis annaga aan ku daabnayn waaye dhibkana haysto kaas waaye ayadana indhaha hadda noo soo furmo waaye daabku waa ka siibanaynaa masaar dhiliq hadday wax dumi karto kabacdiyaa la arkaa ayadana aad iyo aadaa u mahadsantihiin waxaan mar kale u mahad celinaa dadkan muxuu ahay caawa waqtigooda qaaliga ama soo bixiy dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay cabsi ma jirto dhib ma jiro dal dumaya ma jiro ninkii qalloocan asaa qalloocana dhaafaan dhaawuna dhaafaa ninkii qalloocan madaxweynaha fursad uu haystaa wadadaas uga leexan karo wadada uu ku socdaa wadadii fiicneed oo barbar socoto tartiib waa ku leexan karaa wadada fiican waa u sahlanta waa u dhowdahay inuu ku leexdo midda fiican oo dadkaan oo dhan ay shalay u sacbinayeen war heedahay ilaahay amarkiis madaxweynaha shalay markii la doortay ee magaalada isla guguceysay ee xabadaha la ridayay ee meel walba laga dabaaldegay reer hebel ma ahayn maanta waa khaldantaan uga leeyahay muxuu reer hebel u noqonayaa caqligana looga cayaaraya sow maaha war shalay markuu prime ministerka ahaa ee ayadoo la qaylinayo jilidka loo taagan yahay oo baxayay reer hebel ma ahayn nin Soomaali oo hogaamiye Soomaaliyeed oo ahay maalintii la dooranayay ee anagu aan raalli ka soo noqonay u soo hambalyeynay ee beledkaanina isla gugucay oo meel la kala istaaga la waayay oo shabaabku xataa dadka cabsi geli waayeen celi waayeen jidka u soo baxeen marxabada iyo kelmadihii waaweynaaye oo ay dhacayeen reer hebel ma ahayn hadii Soomaaliyeed oo ahay maanta hadduu qaldamo waa qaldantaa la yiri miya muxuu ahay reer hebel kuwa saas dhahay miya ku hayb ahay madaxweynaha reerkiisa ma ahay jufadiisa ma ahayn dadkan inta fadhiyay iyo inta la midka ah magaalada degan Soomaaliya maanta haday banaanka soo baxeen xabad ma afka inta laga geliyo la leeyahay reer balad iyo reer nimaad wadin miya la leeyahay oo waxaas xigmad ma aha aqli ma aha meel ay daruuro ku leedahay oo ku hagaagsan tahay ma laha walaalkeen Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan leenahay raalli ahaaw caqliga ha kuu soo noqdo sakhrada xukun jaceylkaaga ha kaa degto dadkaaga u soo noqo fursadaad weli haysataa inaad markaa lagu doorto madaxweynihii taariikhda ugu horreeya 2 jeer la doorto inaad noqdo fursadaa haysataa laakiin marna ma dhacayso wadada aad ku raadiyo haysataa inay dhacdo ma dhacayso baana ku sheegay waa ka bariyo waayo ma dhacayso ma jirto dhinaca kale bixi jeeso inta tiraahdo dhinaca kale aad dadka Soomaaliyeed marka waa idin mahad celinaa walaalaheen meel kastoo dadka Soomaaliyeed joogaan oo dhageysanayna maqlayna waxaan leenahay dhibaato ma jirto waxaan isku haysanaa waa dimuqraadiyad waa dawlad wanaag waa nabad waa muxuu ku raad dal dhismay cadawgiisa kaliya oo qabno aan hor istaagnay oo 4 sano la soo dhaafay aan waxba laga qabanin iska bulaalay cashuurta qaadanay sida loo sheegay dalkii meel walba haysto waa ka xumaa madaxweynuhuna maalin kasta wuxuu ku faanaa ciidamada dhisna karaan ciidamada dhisna mitirka lagu cabiraa waa maxay inay uniform ku qurxon qabaan qoryo waaweyn sitaaniya mase dalka inay cadawga ka dhiciyeen ka xoreeyeen tuulada la xoreeyay 4 sano la soo dhaafay hal sheego waa challenge gareynaa madaxweynaha waxaan leeyahay noo sheeg tuulooyada maalin shabaabka laga bixiyay yiraahdo kuwa oo xor ahay qabsadeen sheeg karnaa tirinina awadan halka waa laga sheegay marka ciidamadeenu waa qurxoon yihiin waa dhisan yihiin caalamka nagu kaalmeeyay waa mahadsan yahay kuwii nagu taageero waa mahadsan dadkii ka soo shaqeeyay waa ku mahadsan yihiin laakiin midi afle oo fiican oo laga soo shaqeeyay waa sidii saxdeed looma isticmaalo walax qalad lagu isticmaalo neef inay gowracdo mididu ay xalaalayso waa sax waay nin muslina oo aliika leeyahay in halowda laga gelo lagu dileen waa isla mididii waay
neefkii loogu talo noogu gowraco shabaab nooga xoray ciidamada halowda naga gelin aan leenahay madaxweynaha banaanbaxa lagu baaqay waa soo socoyaa ha loo diyaar garoobo waa mid nabadeed oo aan ka mid nahay sida loo sheegay horena aan u sheegay haddana aan ku celinayno maalintaasi waa soo socotaa ee dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan ha u diyaar garoobaano waa mid nabadeed waa mid maxaa tusaaleyn waa mid dimuqraadiyadda iyo xukun wanaagga iyo wadajirka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed lagu badbaadinayo cod waaye